بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا بما تحب وترضى. marka la yiko wanaagsan daawadayaal barnaamijkanagii aan uga hadlaynay qoyska oo maantana aan soo qaadan doono mowduuc kale oo ku saabsan qaybtii dulmiga oo noo soo socotay. waxaan ka soo hadalay dulmiyada dumiye qoysaska Soomaaliyeed. waxaan u soo qaybshay hadda aan soo marnay dulmigii quuriwaaga ahaa oo aan ku soo qaadanay sheekadii Muuse iyo Maxamed. waxaan kaloo soo xusnay sheekadii Wardhigley ee hooyooyinka ku takhasusay inay qoysaska dumiyaan. waxaa ugu dambeysay sheekadii Qurbacley oo iyadana qaybta isku dirka aan ka hadlaynay. maanta insha Allah waxaan gelaynaa dulmiga aan u bixiyay dulmiga isduminta. waa mowduuc aad xasaasi u ah maantana deegaankeena iyo guryaheena saameyn badan ku yeeshay. waa mowduuc ay la qumanaatay in aan ku soo daro buugayga isla markaana maanta casharkeena aan ku soo qaato. waa dulmiga isduminta. dulmiga isduminta waxaan ugu bixiyay waxa weeye qofku markuu dulmigaas sameeyo asagu saameynaya automatic qofkii sameeyay buu saameynaya aakhiradiisii buu duminaya adduunkiisii buu halaynaya qiimihiisii buu baabi'inaya shakhsiyadiisii buu dhulka la gelaya. dulmigaas aan u bixiyay dulmiga isduminta waxa weeye in la isticmaalo quraafaad iyo saaxir iyadoo la bedelayo maankii caqligii iyo garashadii qofka ayaa la isticmaalayaa sixir. haddaba arrintaas uu qofka ku dhaqaaqa saan hadda idiin soo sheegay aakhiradiisii buu duminayaa adduunkiisii buu duminayaa shakhsiyadiisii iyo sharaftiisii iyo dadnimadiisii buu baabi'inayaa. haddaba sixirkaa la sameeyo shareecadu way noo sheegtay qofku inuu inta saaxir u tago oo uu wax weydiiyo iska daayo inuu inta u tago asagoo dalab samaysto oo dhaho saa iyo saasaan wax u raba iyo hadduu intuu u tagaba uu asagu wuxuu u sheego rumeeyo labadaba gaalnima ka ratimaysa. xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa jiray oo ahaa qofkii u taga kuhaan ama saaxir oo wuxuu u sheega aamina wuxuu ku kufriyey wixii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam lagu soo dejiyay oo ah diinkii iyo shareecadii iyo islaamnimadii. waa awalan xagga dhaqanka Soomaalidu dhaqankeedu aad buu u fiicnaa. waxyaabahaas quraafaadka iyo sixirka ah markii dib aad u baadhid taariikhdeenii Soomaalinimo waqtiga ka dambeeyo dadku magaalooyinka soo galayeen way soo badanayeen. lama aqoon qofkii lagu ogaado waxa inuu sameeyana bulshada waa laga takoori jiray magac baa loo bixin jiray sidaasaa bulshada looga dhex saari jiray. haddaba dulmigan isduminta laba arrimood ayaa sabab u ah doqonnimo iyo jahli. labadaas arrimood ayaa sabab u ah qofkii labada arrimood ay ku sifoobaan ayaa inta badan qaata fikraddaasna fuliya kuna burburiya naftiisa iyo maalkiisa iyo magaciisa. doqonnimada sidoo qofka hadduu fariid yahay oo maskaxdiisa iyo maankiisu shaqaynayaan quraafaad ma sameeyo لأنه wuxuu og yahay waxa ka dhalanaya waxaan ayuu qiimeyn karaa natiijada imaan doonto si addresi karaa. marka qof aqligiisu fiican yahay oo wax qiimeyn kara ma sameeyaan. sidoo kale dadka isticmaala dad aqli iyo karti u dhashay ma
لأنه waxay rabaan wixii ay ku waayeen iyagoo fayow in ay maanka inay dooriyaan ku raadiyaan inta badan qofka jahliga ah doqonka ah haddaan caqligiisii ku filayn oon caqli fiican lahayn asuusan tala fiican helin haddii waxaa weeye wixii loo sheego ayuu iska qaataa wuu fuliyaa nabarka markuu ku dhacana wuu boodboodaayo meeluhu warwareegaayo markaasuu meel adag ku baabaa marka qof caqligiisu joogo oo indhihiisu furan yihiin oo aragtidiisu ay saxan tahay ma sameeyo sixir kumana sameeyo qof islaam qofkii u keenana kama qaato sidoo kale qofka hadduu usan ahayn jaahil qofka jaahilka ah ayaa waxaan isticmaala qofka jaahilka ah runtii waa weel maran oo wax walba lagu shuban karo dadka marka waxaan sameeya inta badan waa dad jaahiliin ah oo aan diin iyo maadi midna waxba ka aqoon waa cudur xun jaahilnimadu oo aad u xun oon qofka qof jaahilka ah uusan ku kala saari karin samaanta iyo xumaanta waxa imaan doona berri iyo waxaan ka dhalan doona midna ma kala saari karo waa weel maran oo biyaha lagu shubta camal oo biyihii ahaynayaan wixii dad u sheego oo ay ula yimaadaan dadku ayuu inta badan hayaa ama uu fuliyaa ama uu iska haystaa laakiin waxa inuu analysi gareeyo oo uu fahmo waxaan loo sheegayo taxliiliyo qiimeeyo uma suuragelayso laanna waaba jaahil waxba ma akhrin waxba ma baran waxbarashadu qofka way badbaadaysaa aqoontu qofka way badbaadaysaa qof wax bartay oo fahamkiisu fiican yahay oo maskaxdiisu wax analysi gareyn karto sixir iyo quraafaad ma aado qof taariikhda Soomaalida ama sideedaba cilmi diini ama maadiha bartay sixir iyo quraafaad ma sameeyo qof fahmi kara sheekada loo sheego waxa ka dhalan kara oo analysi gareyn kara natiijadana fahmi kara usoo bixi karto oo resultiga fahmi kara quraafaad iyo sixir ma sameeyo marka ficilkan haddaan soo sheegay ee sixirka iyo quraafaadka ah oo ujeedadu tahay qof inaad isjeclaysiiso ama aad wax maaragtay dhibaato kala abuurto ama wax ku kala geyso ama isjeclaysiiso waxaa asal u ah jahliga iyo doqonnimada socdo waxaan la kulmay rag fara badan iyo dumar ay saamaysay quraafaad iyo sixir loo sameeyey noloshoodii bedeshay naafo ka noqday caqligii iyo jirkiiba kuwii u sameeyana ay uga dan lahaayeen in ama ay ku soo jiitaan ama ay maxaan ku idhaahdaa ku kala geeyaan dad isla jooga oo jacayl iyo nolol ka dhaxayso waa arrin marka Soomaalidu inta badan ay hoos u fiirin dad badanna og yihiin laakiin u baahan hadda inaan ka wada sheekaysano si guryaheena aan uga ilaalino qashinka iyo quraafaadka iyo sixirka inay soo gelin haddaba arrintan ayaa isticmaala ragga iyo dumarku waa isticmaalaan dumarkaas oo badan raggu waxay ka isticmaalaan inta anigu aan ogahay mostly inay isticmaalaan waxa loo yaqaano madiidada gobolada qaarkood Soomaalida oo dhan maaha gobolada qaarkood in qofku madiida isticmaalo Soomaaliya dambi kama aha sixirna loogama yaqaan laano dadka sameeynaya dadka culimo u ah dadka sameeynaya yaa dadka diin u ah oo wax u sheegay marka dadkaasu ma aaminayaan in sheekhi wax khaldan sameyn karo waxay sameeyaan dadkaasu inta badan qof baa diidaya bilmathal nin baa gabar aan ku filinta ahayn ama u dhigmin ama ka qurux badan ama ka aqoon roon ama business haysata iyo hawaysanaya hunguriyeynaya gabadhu waa diidaysa xagu iska laabayaa mid saaxir oo quraafaad laa inta u tago xulay niyo gabadhaas rabay wax igu dhufo gabadha hay ogolaato haddaba waxa baadilka ku yimid oo baadilka ku bilowday wixii